muuqaalkan aad arkaysaan waa kuleejadii hore ee degmada Garbaharey taasoo la dhisay xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya ma jirin wax isku day ah oo lagu dayactirayay kuleejada dhanka kale waxaa jiray baahi ay qabaan bulshada ku dhaqan degmada Garbaharey siiba ardayda wax ka barta dugsiyada sare ama dhameeyaba ma jiraan goob ay ku noqdaan oo cilmigooda ay ka sii wataan sida kuleejo ama jaamacad ay leedahay isla degmada Garbaharey Dr. Ahmed Faarax Ducaale ayaa waxa uu maanta booqday degmada Garbaharey kaasoo u kurgalayay baahiyada ay qabaan waxaana hadda idin soo gudbinaya muuqaal kuleejada oo dhameystiran